dhalinyaro adinkoo kale ah oo hooyo iyo aabe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalmada hooyanimo iyo midka aabanimo ka sokow maalgelin badan la soo geliyo wax la soo bariyo la soo barbaariyay ayaa la yiri dalkiina ayaad muxuu wax u noqonaysaan ciidan aan noqonaysaan dalka difaaciisaan qaar waxaa la yiri fursad la'aan iyo baagamuunde iyo shaqo la'aan idin haysa shaqan idin geynayna waa la qaaday waa la xaabiyey Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa la ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intan magay ka baxeen la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaami kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaam ma qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraay ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladii dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa wali ma aqbalin Eritrea dhalinyaro u dirna xataa wali ma aqbalin iska daa Eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin sidaasi mas'uuliyad ma aha sidaasi dadnimo ma aha waxa la qarinaya waa maxay wax si qalad loo sameeyaa la qarinaya waa mid aan leeyahay dhalinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacad inta soo istaagay dhalinyarada aan iibsanay halkaas ay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dawladda iyo ragga siyaasiyiinta ah kuwa hadda jooga iyo kuwa berigi dhalinyarada ay bixis xilalka hay laakiin hadda aan xilka haynin intaba mas'uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhalinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taagan maalin walba ooynayahay xaqay leeyihiin in ilmahoodii loo sheego xaaladooda xaqay u leeyihiin annagaa mas'uuliyad naga saaran tahay inaan dhahno codkeena ku biirino dhahno war waa arrintaana jiro madaxweynihii hore maxaan ku raahdaa iyo xukuumadda dhammaanteed iyo maxaan ku raahdaa hogaankii ama kuwa hadda jooga dayin iyo kuwa birigaa jooga ciidamada qalabka sida intaba waxaan ka dalbanaynaa dhalinyaradaas xaaladooda iyo warkooda inay keenaan inay sheegaan meesha tiradooda intaasay ahayd ujeedadaasay loo qaaday ama dalka looga qaaday maantana xaalkoodu waa sidaas maalin hebelay soo noqonayaan waa in ay u sheegaan hooyooyinka maalin walba wadada taagan ee cabanaya ee ooynaya ee muxuu ahay hurdo iyo hooyaad ka tegay waa inay u sheegaan dhammaanteen hooyo aabbayaalana ma raalli kama noqon karno wax kastoo dhacay ilmahanagi inaan meel ku ogaan weyno ama aan muxuu ahay war dalkan yaa dalba oo yaa kuladii la dhihi yaa iska leh haddii ilmaheenniina saas aanan madaxdii UN-ka hadda ka hadlo wahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysaa ka hadlo hayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaaliya laga qaado Eritrea tababar loo geeyay dagaal inay ka galeen Ethiopia dhexdeedii Aksum iyo meelaheed ay ka dagaalameen aan soo ogaanay wararkaasaan helnay leeyihiin ayaga raadiyo ka warramo waa dawladdeena maxaa ku dhacay maxay ugu warrami laadahay war xataa wiilasha meeshaan u dirnay dagaalkaas waa galeen anaga umaana diray yiraahdo in kara haday doonaan waa u dirnay dalaan saaxiibna lahaayay wax ka difaacayaan dan Soomaalida ku jirtay ha noo sheegaan ha noo qanciyaan laakiin waa in laga hadlaa in laga aamusahay ma mudna in laga aamuso ma mudna marka maalina in oo wiilasheena iyo caruurteeni jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay noo sheegto maalina dalkeena dekadaha uu bixinaya iyo maxaan ku iraahdaa heshiisyada caalamiga u galayahay ay madax tale oo dalal kale madax ka ah ay noo sheegaan nagama qabato mas'uuliyadda iyo madaxda dawladda ee maanta joogta iyo kuwa shalay joogay intaba nagama qabataan leenahay dawladdu iyo madaxdu waa kuwa dadka soo hor istaaga oo u sheega runta hadday kharaar tahay xataa waa loo sheega waa wax jira oo adiga aadan qarin maanta aad qarinay biriyaad qarinay maalinta dambe intii hore ayadoo kasii kharaaray imaanay sheeg aan leenahay madaxweynihii hore iyo tiimkiisa iyo xukuumadda intaba
shacbiga Soomaaliyeed arrinta dhalinyarada Eritrea ma qarsoomi karto ha ka hadlaan ha hor yimaadin dadka ha u sheegaan runtu haday kharaarta xataa ha u sheegaan wax dhacay waaye haday dhinteen waa la dhimay jiray haday nool yihiin inay keenana laga rabaa soo celiyaan dadku soo celiyaan ayagoo ciidana ku soo celiyaan ciidan ha ahaadaan haddii ayan ahayn ha noo soo celiyaan